السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا شبكة الريم جروبس وشبكة كباحدة اللغة دافك الصومالية ee laga barto cilmiga ICT-ga. waa course cusub, waa web design, waa how to create web page with notepad. marka waxaynu ku dhisaynaa website baynu ku sameynaynaa notepad inagoo isticmaalayna oo macalinka Jamaal. wixii su'aalaad ka qabtaan casharka waa rimgroups@gmail.com. waa course cusub ilaa dhowr iyo toban video inagu qaadanaysa. taas si wacan baynu la soconaynaa from 1 up to intay ku dhamaato. intaynaan bilaabin waxaan jeclaystay inaan idin fahansiiyo hortay conceptiga guud ee web development-kan, web design-kan aynu sameynayna imika. I think you need before you start creating web page. waa ka koowaad horta xeer baa jira. xeerka uu leeyahay web design-ka marka webka la sameynayo waxaa la yiraahdaa HTML. HTML maxay tahay? waa hypertext markup language. HTML waxay markaa iyadu u gaar tahay in la sameeyo web page-da, ma aha in loo isticmaalo waxyaabo kale. hacking ka something like this in loo isticmaalo ma in maaha lagu dhiso application, lagu dhiso application something like this. marka HTML maxay tahay? waa hypertext markup language. marka muxuu yiri rule-ka labaad waxay it is a part of the computer, waa qayb kamid ah computer-ka, computer language. markaas in haru soo sheegnay casharanteena hore computer wuxuu leeyahay luqado badan oo fahmo sida C++, C#, waxyaabo badan oo noocaas. marka it is a part of computer language, waa qayb kamid ah luqada computer-ku fahmo, taasoo qeexaysa which describes taasoo qeexaysa web pages. marka web pages-ka iyadu qeexaysa oo ay gaar u tahay loo isticmaalo, wax kale looma isticmaalo, waa web pages-ka un. okay, idaas tags hadaba wax tags la haday leedahay. marka tags-kan waxay which are specific words, kelmado khaas weeyaan. marka tags-kan marka HTML ka khaas yihiin sida marka surrounded by angle bracket baa ku soo xeeran iyaga. words-kan aynu sheegayno angle brackets baa ku soo xeeran. angle brackets maxaa kamid ah hadaba? for example hadaba HTML watan inta dhexe HTML waxa weeyaan waa kelmad, waa word. marka brackets ku soo xiran waa kuwa yar madoow ku soo xiran. brackets-kaas waa kuwa ku soo xiran kuwaas oo qeexay. marka mainly it comes with pairs. waxay markasta gebi ahaan inta wada ugu badan wax xigta laba yimaadaan. marka waa saas oo kale labada ka yimaadaan. marka kan koowaad waa ka lagu bilaabayo, kan waa ka lagu soo dhameynayo. inta u dhaxaysa sentence baad gelin kartaa ama image, sawir, video xidhno. marka the first tag koowaad, labadan tag waxay ku timaadaa pair bay ku timaadaa. first tag waxa weeyaan it comes the first tag in a pair is star tag. waa ka koowaad bayna waa star ka koowaad waa ka ku bilaabayno. the second ka labaad second tag ka labaad waxa weey is the end tag, waa kan ku dhamayno, waa ka dhamaadka. although inkasta oo it is written oo loo qoro maxaa hay tolo the same as in isku si loo qoro the first one ta koowaad but marka inkasta oo isku si loo qoro ta koowaad iyo ta labaadba inkasta oo ay the same yihiin. marka hadii tan PTR kana q ma noqon karto kama soo horjeesan karto. marka q ma noqon karto markaas kama soo horjeesan karto. marka the second tag la mid tahay labaad. marka it is written the same as marka isku si loo qoro but with a different forward slash. marka tay ku kala duwan yihiin waxa weeyaan waxay ku yar kala duwan yihiin oo qora waa forward slash ta calaamad daayir. waa maxay sheegaysaa calaamad daayir? waa ta lagu soo xidhay. marka lesson-kan koowaad web development-kan aynu maanta halkan ku baranay web design-ka. waxaan filayaa inaynu concept weyn horta ka haysano, waxa casharaantiina soo socon doonaan iyo si inuu qabsan doono. marka course ba weeyaan oo cusub. marka waxaan ku sameeynaa web page-kan halkan ku sheegay notepad. wixii su'aalaad ka qabtaan waa rimgroups@gmail.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.